السلام عليكم وايدي سلام أصحابتي ميل والبا joogtaan si walba ay maqleysaan xilli walba idinta wanaagsan haday taa markuu urida meesha ma fadlan janag subscribe sar muuqaalka la garay wixii fikrad waa comment insha Allah caawa waxa reaction ka wada bixin doona barnaamijkeeni ahaa dadka ku jooga baartiisa saddexaad insha Allah maanta waxa marti nooga stage-ka my sister wiilo Allah gabadhan ama Faadumo wiilo oo u qortay TikTok-ga insha Allah maxay noo heesaa muuqaalkeeda kuwaad marka noloshu noqoto mid xawaare badan sida tareenka adiguna noqo sida bosteejada cidna ma ogaan karta dareenkaada ma waxa ku faraxsan tahay soo dhaweynta kuwa imaanaya mise waxa ka murugsan tahay sagootinta kuwa tagaya ha ka xumaanin haddii uu ku inkiro qof aad wanaag u gashay maxaa yeelay layrarka wadooyinkaba waa la hilmaamaa maalinkii وعلي سلالة ماشاس أنا يسفع مو فاهمين ويلو مر لبعض marka noloshu noqoto mid xawaare badan sida tareenka adiguna noqo sida bosteejada cidna ma ogaan karta dareenkaada ma waxa ku faraxsan tahay soo dhaweynta kuwa imaanaya mise waxa ka murugsan tahay sagootinta kuwa tagaya ha ka xumaanin haddii uu ku inkiro qof aad wanaag u gashay maxaa yeelay layrarka wadooyinkaba waa la hilmaamaa maalinkii معناه وحواي قفكي كهلمامو هلمام مع ما فاهمين ان gabadhan wiil lahaa sidoo kale waa wariye ka shaqeeyo dalsan hadana qaldaneen waxa leeyahay well done sister horusoco noloshu ku maciisho muuqaalkeeda labaad asla daawano ma noqon karo qofkii aan shalay ahay haddii baadan adigu noqon karin ruuxaad maanta tahay qofkaad jacaylkaada amaano uga dhigtay maseerkaada ha uga dhigin deyn way adag tahay inuu labadaba kuu soo wada celiyo jacaylkii iyo maseerkii suugaanteeda wada tadaamaqasho waa sidaan inta wax yaroo oraah lagu tuuro hadan lagu laxmeeyo hees dalq lagu siinaa garatay okay muuqaalka saddexaad wiilo ninka ragga ah haddii uu gabadha ku doorto dhaqankeeda wanaagsan waxa uu dunida joogi doonaa isagoo hal gabar jecel balse haddii uu gabadha ku jeclaado wejigeeda qurxan dartiis waxa uu mar walba jeclaan doonaa gabar walba oo qurxan dunidana lagama heli doonin gabar uu ku qanco jacaylku waa wax ugu adag ee la kasbado waa wax ugu qurxan ee la haysto iyo wax ugu xanuunka badan ee la waayo المأموم محواي قروحه مرة بقفك وين هذا أسبدلي لكن قلبي اسمه بدلايه ماشي يعني سا ودبابة ماشي ساكينا يعني أيضا وحواي وحد هذه قفك هدا كل دورة قلبي ولي هاي القف جعلان دون تعال لكن هدا قروح كل دورة ما هو بقفك قرحان بحث هرو صراع بعد أنا واحد هاي وقوتها haddii aysan naxariistii jacaylku ka ahayn mid aad dabeecad iyo dhaqan u leedahay haddaba wanaag kuma sugnaanin jacaylka ku yimaada markaad naftaada khasabto si aad qof kale u raali geliso ama farxad beenaa ka muujiso wejigaaga goortii aad arrin muhiim ah uga baahato uma hayo waqti aan kaga warwaro cidaani jeclayn waxaan ku mashquulsanahay jacaylka kuway jecel haddii aysan naxariistii jacaylku ka ahayn mid aad dabeecad iyo dhaqan u leedahay haddaba wanaag kuma sugnaanin jacaylka ku yimaada markaad naftaada khasabto si aad qof kale u raali geliso ama farxad beenaa ka muujiso wejigaaga goortii aad arrin muhiim ah uga baahato uma hayo waqti aan kaga warwaro cidaani jeclayn waxaan ku mashquulsanahay jacaylka kuway jecel gabadha wiilo waxa waaye xubin maamo socod yar oo la socoto murtidiisa kadibna lagu heesaa culays kuma hayo ma fahanti okay muuqaalkeeda ugu dambeeya wada fiirno wiilo dhibicda roobka ah waxay doogasho leedahay intaanay dhulka gaarin
qofka daacadda ahna waa sidaa oo kale haddii aan la daryeelin inta uu nugul yahay waxaa adag si loo dabiibo marka uu bukoodo maalmuhu qofka ma beddelaan ee waxay soo saaraan xaqiiqadiisa gabadhan wiilaa intaas uga baxano waxaa leeyahay horumar wacan sister waxaana ugu qoran tiktokeeda wiilo 20 insha Allah nolosha kuma ciisho hadday taa markuu wada meeshan ma tafadal janag subscribe saar muuqaalkan la garay wixii fikrad waa comment insha Allah muuqaalka xinta ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo